aye waxaan rabaa inaan u yeero engineer Faadumo Yusuf Faadumo Derbi oo qortay ayadana book la yiraahdo caaw qoraalka qorayaasha waa socdo ayaan of the luck cidii akhrisay baa akhrisay marka Faadumo soo dhawow Yes, كي تعال كانوا صاعدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamaya dhamaantiin caawa dhiiqada waa lagu wada jiraa oo dad badan oo macallimiintaydii macadka iyo iskuuladii soo wada dhigi jirtay iyo qoraayadii iyo dad ilaahay oo dhan baa fadhiya maasha Allah runtii hadalka marba inaan idinku dheereeyo I just want to say a few things marka koobaad horta waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo Dr. Cabdirasaaq Warfaa ugana mahadceliyo runtii isxilqaanka uu isku xilqaamay inuu taariikhda Somali state ama Ogaadenia ama Somali region uu ka qoray ama Somali galbeed ilaahayna ajar iyo xasanaad ha ka siiyo inagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu anfaco marka labaad waxaan doonayaa inaan wax yar ka iraahdo muhiimadda ay taariikhdu leedahay marka taariikhdu sideedaba waa barashada dib u eegidda u kurgalka iyo weelaynta wixii dhacay ee tagay muhiimadii leedahay runtii aad iyo aad bay u fara badan tahay laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan in cashiro badan iyo cilmi badani uu inoogu jiro oo waabaka ilaahay inagu yiri laqad kaana fi qasasihim ibratun liulil albaab oo ah in cashiro badan iyo cilmi badan uu inoogu jiro taariikhda iyo sheekooyinka ummadihii inaga horeeyay jiilalkii inaga horeeyay iyo ummadaha kaleba taariikhdu waxay qaabaysaa hab fikirka ummadda waxayna jihaysaa ficilada dadka waana sababta keentay inay gumaystayaashu aad iyo aad ay waqti badan iyo dadaal badan iyo dhaqaale badan geliyaan inay ama marin habaabiyaan ama ay tirtiraan taariikhda ummadda ay gumaysanayaan marka taariikhdu waxay runtii didabada u aastaa jiritaanka ummadda ummaddu haddaysan garanayn taariikhdoodii meesha ay ka yimaadeen hadda meesha ay joogaan siday ku yimaadeen waxyaalihii ay jiilalkoodii ka horeeyay ummadii adduunka kusoo kordhiyeen iyo khaladaadkii ay soo galeenba waxa aad u dhib yaraanaysa in ummadda laga dhigo hadba sidii la rabo oo dhinacii la rabo loo jihayn karo taasoo ayba ka mid tahayba in ay ummaddaas laga dhigo dad iyagu hawlgeliya hadafyada dadka gumaysanaya ay ka mid noqon karto in iyagu qayb weyn ka qaataan dilka dhaca iyo dhibaatooyinka ummadooda lagu hayo marka runtii taariikhdu aad iyo aad bay muhiim u tahay waana wax mas'uuliyad weyn inaga saaran tahay aad baanan uga mahadcelinayaa Dr. Warfaa waxaana rajaynayaa inay buugani uu inoo noqdo tusaale oo in badan oo inaga mid ah aynu taariikhdeenii ku ilaashano ku qorno midii hore kaliya maahane midda hadda aynu inagu samaynaynaba aynu kuna taageerno dadka qoraya waxaan rabaa inaan idinka tago su'aal ah qof kasta inuu naftiisa ku noqdo waxa weeyaan taariikhdu jiilalkii hore sidaan taariikhdooda u eegayno oo aynu u baranayno oo ugu fiirsanayno ayaa inagana mar taariikhdeena loo eegi doonaa marka qof kasta oo inaga mid ah waa inuu isweydiiyo taariikh sidee abaan rabnaa inaan ka tagno taariikh sidee abaan rabnaa inaan jiilalka dambe aynu u reebno maxaynu doonaynaa in ilmaheena dambe generationna badan iyo jiilal badan kadib maanta 100 sano kadib maxaan rabnaa inay dhahaan dadkii reer Soomaalida ahaayoo halka Minnesota joogay ama Soomaalida waddanka joogtayba dad sayabay ahaayeen maxay soo kordhiyeen aynu wax ku ool leh aynu uga tagno marka intaasaan idinka tagayaa waad mahadsantihiin hambal yana Dr. Warfaa Faadumo aad iyo aad baad mahadsan tahay Faadumo waa engineerad waxay hadda ka hor imaatay oo iskuul aan dhignaa waxay ciyaalka 6 7 8 bay project wax u sameysay sida qalitaanka wadnaha bypasska loo sameeyo tust ilaa harda ardayda qaar baan soo weydiisay oo dhahdo goormay soo noqon doontaa 6 bay hadda qalin jibinayaan kuwoodii kale marka community service badanna way haysaa jazaakallah qoraalka kaliya ma aha service kale ay sameeysidna ayadana waan kaaga mahadcelinaad community-gu haysid